رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد anigoo kamid ah hooyooyinka kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed kana mid ah dadka wax alifa ee muallifiinta ah waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo gabay ama suugaan ku saabsan dhaqanka Soomaalida iyo dhalinyarada dhibaatada ku dhacday. haddaba arintaas waxaa igu kalifay markii aan arkay dhalinyaradeenni sida ay isu bedeleen dhaqankoodii iyo diintoodii iyo sharafkoodiina ay uga tageen. haddaba sideedaba bulsho waxaa sharaf u yeela ama qiimo u yeela ama ay ku tiirsan tahay horumarkeeda uu ku kacaa waa dhalinyarada. haddii ay dhalinyaradu u hagaagto bulshadaas ama mujtamacaas wuu hagaagaa. haddii ay dhalinyarada ka xumaatana bulshadaas ama mujtamacaas wuu baaba'aa. qoyskana sidiisaba wuxuu kasoo dhismaa waa dhalinyaro. marka bal inaan isxasuulsino dhibaatada dhalinyaradeenni ku dhacday iyo sidii looga gudbi lahaa. gabaygaasna waxaa lagu magacaaba ama suugaantaas aan ka tiriyay dhalanguur waa dhaqankiyo bedelmay una bedelmay dhaqamo iyo ma aragtay wax aanan garanaynin. haddaba gabaygii ama suugaantii oo bilaabatayna oo waa sidan: bismillaahi raxmaani raxiim. dhalinyarada maantooy dhaqankeenni hodankiyo diinteenni dhumisoo xishoodkii ka dhooftaye ka dhaqaaqday hidihiyo dhool soo jireenka ah. dhab haddaad u eegtana dariiqaad maraysana dhaygag baa ku dilayo waa dhabanna haystani. wiil dhalada xiirtoo ay foodu dheer tahay dhanna timuhu raan iyo ay dhooba leedahay dharka uu qabaa iyo dhajis shaar ahoo dhinacyada u gaabani. surwaalkaa ka dhacayo shaarica dhexdiisu dhawaaq foolxun iyo hees kolba dhan ula liicaa. dhabta tii ku qaadiyo hooyo dhabarka saartiyo dheefta aabba keeniyo dhididkiisii kuu cunay xaqoodii ma dhuganoo dheef iyo wanaag iyo waxtarkaa ma dhowraan. dhan kalaa kasii daran dhaqanguurka maantiyo dhibaatada daroogada dhalinteenna haysaa. dhabbahaad maraysana waxa dhooban qaadee laamiyada dhankoodiyo shaarica dhex yaallaa dhalaalkii magaaliyo bilicdeenni dhaawacay. dhibtan yaa u sababoo dhaqankeenni laga tegay. dhul shisheeye aadkiyo tahriibkiyo dhibaatada dhaxalxumadu waa maxay? dhul shisheeye aadkiyo tahriibkiyo dhibaatada dhaxalxumadu waa maxay? dhalanguur hadduu yimid cidna dhaafi maayee Soomaalay dhaqaaqo ka dhiidhiya xumaatada. dhalintaa badbaadsho dhinaceeda joogsada dhabbihii la soo maray taariikhda dhoolka ah. hadalkayga dhuuxoo dhab u fiirsa oo maqal. dhalinyaradii leegada markii ay dhaqaaqeen dhibtii uu gumaysiga dhulkayaga ku haayee dheefteenna guran jiray ay ka dhiidhiyeen oo dhagaxyaha u qaateen waa tii dharaar weyn rasaas laysu dhiibo xaawo dheega loo suray. dhiigeenni baxa iyo dhalintii kacdoontana cadowgii dhaqaaqiyo xornimaan ku dheefsaday. dhalinyarada maantoy dhaxal duugma reebee dhaqankiyo shareecada dhabbihii ilaahiyo rasuulkeenna noo dhigay ku dhagoo hasiideyn. allahumma salli calaa nabiyina maxamed. dhabbihii ilaahiyo rasuulkeenna noo dhigay ku dhagoo hasiideyn. waa diin dhammaystiran dhan walbood ka eegtaan. dhammaad weeye dunidan qof walboo dul joogana mar uun iilka loo dhigi dhagaxdiyo turaabtiyo la dul saari dhoobada. dhawaqaygu wuxuu yahay intay nolosha dhuuntiyo kalxamaha dhexdoodii ay ka bixin dhafoorada toobadkeen dhammaystiran istighfaar ha dhaafina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.